صلى الله عليه وسلم إلهي ما هذا كليجي إلهي ما سبحانه وتعالى توحى مانتا إنه بلا ويوع عصب إنه بلا الحمد لله رب العالمين بريوان كله فديني وهذا كده نحنيس بحيرة هندراب كمان تو بربرة فريب على حلي ما الحين وحين نومر هندراب بيجي وقتي حاليا إن شاء الله تعالى نومر هندراب بنقطع إن شاء الله سام الحين وشيء الحين كعينكو waxaan dhowr daarimood baan isla eegnay wada ishiyo badan arrimo badan hor yaala saasa loo kala qaaday doorashadu waa gaar doorashadu hadii aanay wadanku ay nabad jirin oo magaranaysaa institutions aanay shaqeynayna colaadi jirin ay doorashadu suurto geli kartaa laakiin jawi aan doorasho qaban kar aan ku dhici kareen lagama hadli karo doorasho marka jawigii inaan xalaalayno oo isbarab oo wadanka nabad lagu soo hejiyo dildilaaci dawlad inaga dambeeyay magaranaysaa doorashooyinkii la kabo gacmaha la isqabsado iyo agabkii iyo diyaar garowgii doorashada in la isgarab wado ayaa labada guddi loo sameeyay waxaan jeclahay insha Allah taala inaynu ka gudbi karno wax ala wixina hor yimaada wada jirkaas laga gudbi karaa wada jir baynu dalkan ku dhisnay wada jir baynu adduunka ka maarnay oo waxaynu geysanay wax weyn weeye laakiin waan iibin kari weynay laakiin waxyaanu sameeyay mucjisooyin baa adduunka hadda la qoro ay noqon dadku noqon doontaa si aynu markaa aynu wada jirkii aynu ku guuleysanay lagu soo celiyo oo xilkuna uu saaray kolba qofkii markaa hoggaanka haya innagana xilna saaray inaynu gacanta siino ayaynu ku soo noqonnaa insha Allah taala markaas aasaan ku shaqeynaa haddaan isku iman doonaa insha Allah taala qodob isku dul taagi doonaa waxaan xalkeeda wala heliyaa waxaan oo dhan waa very simple wax jiresan haddii dadku uu isku tashado oo gacmaha isqabsado uu is aamino haddaan jirin is aaminaad waxa la wada dhisi karo inaas aaminaadii soo wixinaan jecel insha Allah taala qodobkan kale ninkan baran joogana Cabdiwali sanaagta soo shabaray waadi waqti dab u galiyay haddana barigii wuxuu doonay sanaagta baray u dab galiyo waxaan noo kala hadlay si toos ah hadlaynaa magaca suldaanka Suldaan Saciid nariis Soomaaliland oo saldadii shiraanka kuwan maamulada qaatay mikrofon sita maahed dalbaha leh dhaqarada leh kala jeejeeda maahed waa nin asal ah oo soo jeeda reer talin jiray ma jecelna inaanu dhulkaas uu noqdo garoon lagu tartamo battle ground inay noqoto madoona bariga sanaag qolada Mauritania dabkii ay Suudaan Soomaaliya uu ka taagan yahay wali waa kuwa shanta dawlad ka kala dhigay laakiin halka ku khasaaraya waa Suudaan Saciid waxa leenahay Suudaan Saciid wada la dhisay iyo jaamacad iyo loo baahan yahay anoo maxaasisna cidii kasta wax geynaysaa in wax tarka horumarka laakiin Soomaaliya waxa way harag sagaaro lama ka jarjar karo mid qoblaan farq u nahay siyaasad ahaan iyo military ahaan waan daafici karnaa dalkeena waxa leenahay xilku xusaaran yahay deegaanka dadka degan iyo suldaanka uu joogay British ka noqon doona insha Allah taala dadku u socdo laakiin dhulku ma guuro baran guuri mayso Soomaaliland turistay waxaanada ay waan ahaanaysa taasaasan leenahay waan ku garab taaganay dawladda wixii dan guuda iyo difaaca qaranka waa loo sameeyaa arintan kufsigana waxa weeye madaxweynaha waan la soo wada qaadnay horta waxa weeye wixii aynu iskaran weyno waxa weeye intaan horta mikrofoonada la qaadan dawladda loo dadka la hadlaa dawladda la hadlaa wala dhageysta inagu waxaan ku ordinaa mikrofoon ummadna wada mikrofoon si taga warta waxaan ila marmar waxa la yiraahdaa nin baxa jir hadal badan la yiraahdo waxa la yiraahdaa dab casar waxay Soomaaliya wada dab casar baan
وود السيدان حسيت دبحص wadaadada waxa fiicnaa wixii ay degan inay u soo qoraan madaxweynaha la fadhiistaan la munaqashadaan laakiin inay mikrofoon qaataan si qeyr mas'uul ma fiicna haddana waxa ka hadli doona insha Allah taala wasiirka awqaafta waxayna waa dhamaysan wixii diinta islaamka soo horjeeda ma ogolin ana weligeed diinta aad u meel qoona waajib ma meel ka heen ma ogtahay hadda diinta oo baranay ma ogtahay magalaan dhaafin kari maayo diinta inaga noo asala taasina ku soconayna sharciga kufsiga ee secularka iyo ka dadkeena ahli diinka uu kala duwan yahay inuu waxaan nahay dad islaama ma wixii ilaahay soo diiday hadaynu iska diidno wax malmaluuqay aan qaadano inaga caraabta galina ma waynu ka soo horjeednaa waan la eegay anaguna waan dirsinaa laba xusbi way dirsinaa insha Allah taala wixii inagu xun waan ka saarnaa insha Allah waxaan leeyahay dowladda ka saarto waxaan sheegi doonaa hadda wasiirka arrimaha dowladda madaxweynuhu maanta fadhiga qadan oo ku daray alxamdulillah jaadna oo ku daray